يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. كلن كينن wuxuu ku saabsan yahay dayashada wanaagsan al-uswatu al-qudwa wal-uswa al-hasana linabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dayashada wanaagsan aad ku dayanayso nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam. mawduuca qudwada iyo mawduuca ku dayashada mawaadiicda muhiimka ah ayuu kamid yahay. runtii su'aalaha iman kara waxaa kamid ah yaad ku dayanaysaa adigu noloshaada, diintaada, shaqadaada, maciishadaada, umuurahaaga oo dhan. dadka qaar waxaad arkaysaa noloshiisa diinta aad moodid inaanu u baahnayn inuu cid ku daydo. qaar waxaad arkaysaa aad moodid noloshiisa adduunyo aanu moodid inaanu u baahnayn inuu cid ku daydo. qaar waxaad arkaysaa labadii nololood, tii duunka, tii adduunyada iyo tii aakhiraba, oo labadaba dayashadooda qofku uu si wacan ugu dayanayo ciddii shareecadu ay amartay in lagu daydo. sida awgeed qofku keligii ma noolaan karo inuu cid ku daydo mooyaane, waa lagama maarmaan. qof cidla iska taagnan karaa ma jiro. waxa weeyaan noloshaada adduunka iyo aakhiro cidaad ku dayato oo mucallim ku ah ayaad u baahantahay. sida awgeed baa qofka su'aalaha ku imanaya markuu qabriga la geliyo ee malaa'igtu u timaado durtaba waxaa la weydiinayaa man rabbuk, rabbigaa waa kuma, oo micnaheedu yahay kumaad caabudi jirtay. wamaa diinuka, diintaadu maxay tahay. waman nabiyuka, nebigaagu keebuu ahaa, waa kuma, yaad ku dayan jirtay oo raaci jirtay weeyaan. fi suurati al-ancaam ilaahay 18 nebi markuu ka soo sheekeeyey ayaa alle wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina hadaahum allah fabihudaahum muqtadii. kuwaa laga soo sheekeeyey waa kuwii ilaahay hanuuniyey subxaanahu wa tacaala, hanuunkooda ku dayo. aayadda 9aad laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. rasuulka ilaahay dayasho wanaagsan ayaa idinku sugan ayuu allah leeyahy subxaanahu wa tacaala. liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir. cidda ku dayanaysa ay daryeelaysaa waa kuma, waayo waa cidda ilaahay rajaynaysa oo ka cabsanaysa la kulankiisa, ku xisaabtamaysa inta ay nool yihiin dunida joogaan. aakhiro iyo xisaabtankaasi calooshooda ku jira. ibnu kathiir markuu aayadda fasiraya wuxuu leeyahy hadihi alaaya aslun kabiirun fi ta'asi birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam fii aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalih. aayaddani waxay gundhig weyn u tahay ku dayashada dadku inay ku daydaan rasuulkoodii sala allahu alayh wasalam, aqwaashiisa, afcaashiisa iyo xaaladihiisa oo dhan weeyaan inay ku daydaan, waa lagama maarmaan. sidaa awgeed baa qofka muslimka ahi ku dayashooda rasuulka lagu dayanayo markaad cadhaysan tahay, markaad faraxsan tahay, markaad mushkiladaysan tahay, markaadan wax problema kugu furnayn. marka qaarkood nebiga sal allahu alay wasalam markaad fiiriso axaadiidta waxaad arkaysaa maalan xadiidka saxiixa ah, nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leey anas ibnu maalik maalin baan la socday, sadcaal baanu ahayn, waa la socday rasuulka sal allahu alayh waali wasalam. go' buu huwanaa, beledka najraan la yidhaahdo lagu sameeyey, oo go' qallafsan ah oo adag oo qara leh. nin reer miya oo ordaya oo aad u taabacaya oo lixaadsanaya naga daba yimi, markaasuu rasuulka ku soo dhuftay maradii. sidaa uu rasuulku u hagoognaa calayhi salaatu wasalaam. maradii baa rasuulka dhufashadii dhibtay ilaa halkaas surka ah ay arrintii raad ku samaysay runtii maradii nebiga sal allahu alayh wasalam. saasuu u eegay ninkii muxuu leey yaa muxamed murlii min maali illaah alladii cindak. maalka ilaahay aad haysaydna lagu kaa soo dhiibay, dadka noo amar waxna laka siiye. faltafata ilayhi rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam fadaxik. rasuulku intuu sidaa u eegay ayuu qoslay. uma amara lahu bicataa. markaasuu wuxuu amray in la siiyo wixii deeq iyo wixii markaa la haaban kariyay in la siiyo. qof mas-uul oo madaxa maanta haddii qof shacab ah uu sidaa yeeli lahaa, waxaa laga yaabaa intaanu jawaabinba waardiyaha ama istaafka ku xeeran inay waxyeelaba u geysiin lahaayeen haddaanay naftaba ka qadimin weeyaan. waxay ku tusaysaa rasuulka sal allahu alayh wasalam noloshiisu waxyaabaha u baahan qofka muslimka inuu aad ugu daydo
ee laga maarmaanka aweeya caaisha mar la weydiiyay nabiga akhlaaqdiisii maxay ahayd bal ka waran akhlaaqdiisa waxay tiri quraanka akhriya quraankay ahayd salawaatullaahi wasalaamu calayh wixii quraanku raali ka yahay buu raali ka noqon jiray wixii quraanku nacana uu nici jiray ma ahayn rasuulku faaxishan walaa mutafaxishan qof afxun ama afxumada iska doondoona ma ahayn rasuulku sallallahu alayhi wasallam suuqa iyo dariiqyada kama qaylqaylin jirno qaylo iyo buuq iyo waxa shaqadiisa ma ahayn salawaatullaahi wasalaamu calayh haddii xumo cidi ku samayso xumaanuga ma abaalgudi jirin way iska caafin jiray wuu dhaafi jiray laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana dayasho wanaagsan baa rasuulka ilaahay ku sugan rasuulku hoggaan buu ahaa haddaad cid ku dayanayso inaad mudan tahay isaga ku dayatid xagga cafiska iyo saamaxaadda xadiidkaasaaba ku tusaya xagga xishoodka xagga tudhaalka iyo naxariista maalik ibnu alxuwayrith wuxuu yidhi rasuulkaanu u nimi sal allahu alayh waali wasalam ataytu nabi sal ly slm fii nafarin min qawmi rag dhabaatameeye ahoo tolkay ah oo qoomkay anigoo la socda fa aqamnaa cindahu 20 leyla 20 habeen baanu la joognay wa kaana raxiiman rafiiqa wuxuu ahaa qof naxariis badan oo turaal badan nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh inaad caynkaan noqoto oo qallayfka iyo adayga xagga gaalada xijiso muslimiinta turaalka iyo naxariista waayo ilaahay baaba dee tilmaamay rasuulku wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin dayasho wanaagsan marka maanta in badan oo ka mid a da'yarteennii ama rag dheh ama dumar dheh ama dhalinyaro meel dhexaad iyo cid waaweynba waxa ay noloshooda wax weyn oo dhibaataa ka haysataa cid ay ku dayan lahaayeen sidaa awgeed baa wareer baa ku jira qaar baa xitaa caafimaadku ka xumaaday markii ay marba siday meel maxaan ku yidhaahdaa ugu dhacayeen oo marba si ay cid aan mudnayn in lagu daydo ugu dayanayeen in noloshoodii caafimaad waxyeella ku timaado sidaa awgeed qofka dayasho wanaagsan adduunyadan doonaya nebi maxamed buu ku dayanayaa في جميع الحياة نولشة أردن نبي كودين صلوات الله والسلام عليه هديجي سنه سيدو أركز تواضعه سيدوها كبر ما أقون اسفنشوقين ما أقون نعمة إلهي أوسيكم ما كبر تشيرين اسم قاد قاري تشيرين ما كبر حرقون تشيرين لا فيها إسقاط قاد كما أقونين عرور تحت هدو صامرة وسلامي تشيرين السلام عليكم نبي صلوات الله والسلام عليه وحالي تشيرتي قف دمرين أوتيمادو وطباليسن وإسلا تاكتو oo inta la taagnaado muraadkeedii danteeda u sheegato marka ay danta ay ka rabtay iyo u sheeganaysa ay dhamayso marka inuu ka soo dhaqaaqo salawaatullaahi wasalaamu calayh kabto haday ka goodo isaga sameeysan jir nabi sallallahu alayhi wasallam marado haday ka jeexanto isaga tolon jir ridaha markuu u baahdo isaga soo lisan jir masaakiintu la fariisan jir agoonta iyo dumarka carmalka ee baahan iyo xaajadoodii dantoodu waa ka shaqeyn jir waa ka warqabi jir kii u yeera وأقبل جري نوكال رسولك إلهي مركا قاركود با كيميس إيو حيد راكتي مدوتها لي وحتى صنفتي دو سيرا بدشي أيال لو قدر جري ويسكعوني جري انت ذا كما سنتاجي جري مركا وبا هذا وحو اشتهينا وعوني جري وحي كلا ويسكدين جري نبي صلوات الله والسلام عليه قفك بوكا وصوب بوقان جري إنك بوقا شايدك بوكا حتى إيمن كوايا يرتا جنازة دو راعي جري نبي صلى الله عليه وسلم ونستلمام إن ساد جودة النبي صلى الله عليه وسلم مرة قار كود دمير بفول شرو قاعد يسنش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوات الله وسلامه عليه قدوة حسنة أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه قدوة حسنة أيها النبي وها صلوات الله وسلامه عليه أبسد إلهي ده يقضى وحب حنت يكرمك وحولي أنس بن مالك مالين بان أوي من النبي صلوات الله وسلامه عليه مركز وحسي غنما بين جبلين علي لباب وراد لحدود بوحيي أيوسي النبي صلى الله عليه وسلم أيوسي يقضي سيكتسس النبي صلوات الله وسلامه عليه وحمنك يقوم كيسو يمد وحوا النبي محمد بن الله كل ماي وانين أن قاعد شيء فقري كبقين ونك دون يو نك قاعد كسر الميجي قدر يرانا كوياعين جيس النمديس النبي صلى الله عليه وسلم هبين المدينة يضو حل إلى شيف صدي أيا سنقاري بحذي وحي تهلا جرن واي علالك قال ذنا درين بالك قضي إن الدولة سميان فرس لا يدعه أيو لا يدفولي وأن وح سارن شرين فرس كهدانو كوري يحسارنين قفك فردفول كأم براعي كراديك لو كم الحياة قفك كله أبو طلحة والهابو راعي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صون نقطة فرسكي مركز وحو يري وحويان لم تراعوا وحويان أو كما قال صلى الله عليه وسلم دبات مجتهد دبات حبا والولي أرجح مجتهد النبي صلوات الله وسلامه عليه
ninkii ariga uu siiyey qoomkiisii buu yimi isagoo ari badan dareerinaya yaa qowmi aslimuu fa ina muxamadan yucطi caطaa'a man laa yakhsha alfaqr war nimaan faqriba ka baqayn baan arkay waa kana habeenkii dayasho wanaagsan soo jeedkiisu cibaadu ahaa inaga soo jeedkeenu miidiyaha u badan lagu soo jeedo salaatuleyl iyo qiyaamuleyl iyo oohin iyo khushuuc saxaabadu markay ka warramayaan sida xadiidka mutarif ra'aytu rasuul lah sal yusalli wa fii sadrihi aziizun kaaziizi raxa min albukaa kaaziizi lmirjalna waa jira dherigu markuu kurkurleynaya karaya saasoo kale ayaa qalbigiisa oohinta nabigu ooynaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gogasha wixii howlu ku seexan jire cuntada wixii howlu cuni jire cumar baa maalin u yimi isagoo gogol intuu ku seexday waxba aanay ka xigin jimbaartii iyo cawdi jirkiisii ay sawirtay markaasuu cumar ilmeeyey maxaad la ilmeynaysaa nimankaa gaalada adduun baa ilaahay siiyey innagana aakhira ilaahay inuu ku deeqay subxaanahu wa tacaala sabirka iyo dulqaadka iyo cafiska iyo ciddii wax ku samaysta kahratu listikfaar walmujaahada fi lcibaada midkeena cibaadada ka fadhiya caajiska maqaaxiya iyagoo iska fadhiya la adimaya la qiimaya salaadii aan xaadiraynin jumc iyo jamaacaadka ku yar yihiin nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi istikfaartiisa waa badnayd aljumca waljamaacaat buu xaadiri jiray sadaqada iyo deeqda xuska ilaahi ana abu hureyra wuxuu leeyahay majlis keliya oo aanu fadhino waxaan u tirin jirnay 100 jeer astaqfirullah alcadiim alladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum watuubu calayh rabbi ikfir warxam inaka anta algafuuru raxiim riwaayad kala sheegaya nebigu sal allahu alay wasalam xajka iyo cibaadada war iga qaata aniga lita'khuduu canii manaasikakum waxaan sidaa u yeelay inaad iga qaadataan acmaasha xajka saad u samaynaysaan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saasuu ahaa habeenkii weysaqa buu ku seexan jiray kudayashada wanaagsan ciddaad ku dayanaysid intaad john iyo james iyo ku dayanayso isagaana ku dayataa laazima garab dhanka midig buu u jiifsan jiray gacanta midig buu dhabanka saari jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh allahuma qinii cadaabak yowma tabcathu cibaadak axsanu nnaasi mucaamala dadka qofka ugu mucaamala wanaagsan buu ahaa wax iibsiga wax soo iibsiga nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayuu ahaa qofka buu booqan jiray nabiga sal alay wasalam iska waran sidee tahay janaasaduu raaci jiray waa u ducayn jiray allahuma rabbi nnaas adhab ilbaas washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaak shifaan laa yugaadiru saqman nabiga sal alay wasalam midigtuu isticmaali jiray wax cunista wax cabista salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa ina midigta isticmaal laha wuxuu isticmaali jiray kabagashigiisa fidhashadiisa wax siinta wax qaadashada cuntada cabitaanka bidixdana wuxuu isticmaali jiray waxyaabaha kale xaajaadkiisa hadiyada waa aqbali jiray sadaqada ma cuni jiray nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh akhlaaqdiisu saasay ahayd waxaynu qodobada kala duwan u sheegaynaa ku dayashada wanaagsan ee la rabo nabiga inaad ku dayatid noloshiisa laguma soo koobi karo daqaa'iq kooban laakiin waa wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waa waano iyo wax sheegis weeyaan saxaabadii raacday ee rumaysay ee ku dayatay adduunyada waxay noqdeen cid nebi raacda oo adduunka soo marta oo saxaabadii ka qaalisanna ma lama arag dibna loo arki maayo khayru naasi qarni waatuu nebigu leeyahy ilaahayna uu tilmaamay wasaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abadan dalika alfawzu alcadiim waxaynu markaa iskula dardaarmaynaa inaynu ciddaynu ku dayanayno nebi maxamed ku dayanno calayh salaatu wasalaam nolosheenna ku salayno waa cibaado iyo nolol wanaagsan oo farxad leh baynu ku noolaanaynaa fasatadkuruuna maa aquulu lakum waufawwidu amri ila allah wasalaamu calaykum